Marwa ayaa waxa ay la nooleed xaaskeeda iyo carruurteeda, waxayna ku nooleed nolol iska caadi ah oo ay ayada ku faraxsan tahay. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimaaday nin beeraley ah oo ay ninkiisa is yaqaaneen, waxaana ka codsaday inay gabadhooda la joogto oo ay ayaga u shaqayso. Waxayna ka ogolaadeen, balse gabadha yarta waa ay diidaneyd, balse wuu ka tegay. Subaxdii ayay soo kici jirtay ayadoo caawinaysa marwada, waxayna la kaxayn jirtay carruurta yararka ah oo ay ayada dhashay, waxayna u soo laaban jirtay xaafadeeda si ay u qabsato shaqooyinkii u dhimanaa ilaa laga gaaro saqdhaco habeen ah. Saasay tahay ma uusan u naxariisan jirin ninka qabad marwada, waa uuna dili jiray mar kasta. Hal sano kadib markii gabadha xaafadda la keenay ayaa waxa ay marwada aragtay gabadha oo ay ka dhacayaan saxamada oo ay ka jabayaan. Way soo kaxaysay, waxa ayna u keentay in dhakhtar ah. Waxa uuna u sheegay ninkii inay gabadhan aysan waxba arki karin ilaa meel dhow muuqiyey inaysan meel dheer waxba ka arki karin. Saasay tahay umuusan naxariisan jirin ninkii. Maalin maalmaha ka mid ah gabadhii waa ay iska baxday. Ninkii iyo marwada waxba ma aysan ka soo qaadin, mana aysan raadinin. Dhowr sano kadib wiilkii marwada ayaa waxa uu dhameeyay jaamacadda, waxa uuna helay shaqo, waxa uuna guursaday islaan. Uur ayayna u qaaday. Markii ay bilihii uurka dhammaadeen, cunug ayaa loo dhalay, balse cunugii waxa uu ahaa mid aanan wax indhaha lahayn oon waxba arki karin. Waxayna geeyeen isbitaal kasta, balse faa'iido la'aan, waxba ma aysan ka soo faa'iidin. Ninkii waa uu isku weeraray, sidii ayuuna ku waashay. waxaana la geeyey isbitaalka waalida ayaana la geeyey. islaantii maalin maalmaha ka mid ah ayadoo iska fadhida ayaa waxaa ku soo dhacday gabadhii yareed oo ka carartay jaxiimadooda iyo dhibaatooyinka ay ku hayeen. waxayna bilowday inay raadiso, waxayna ogaatay inay gabadha ay ka shaqayso masaajidada ka mid ah. waxay u tagtay, waxayna soo kaxaysay, balse gabadhu waxba ma aysan arkaynin. xaafadda ayayna keentay, waxayna bilowday inay barbaariso oo ay si fiican uga dhaqanto. islaantiina waxay bilowday inay Allah ka qufraan dalbato oo ay markasta ducaysato. waxayna ka shalaytoon jirtay waxyaabihii ay hore ugu soo sameeyeen gabadhan yar. fadlan waxaan kaa codsanaynaa haddii aad channelka ku cusub tahay inaad subscribe saarto, videoguna like saar, commentigaagu waa muhiim. aad ay u mahadsantahay.